وأنا سلام دمان صاحبada ku xiran channelkayga aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad la socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka nagu soo biir si aad u hesho sheekooyin aad u xiiso badan maanta waxaan rabaa saaxiib inaan idin wadaago xog garan kaga hadli doono gabadha ugu dhalay jiraaga caanka ah Sunil Shetty ama Balloon xatu taqaano taa oo lagu magacaabo Atifiya Shetty gabadhan oo kamid ah hablaha ugu da'da yar ama tirshadaha ugu da'da yar ee Bollywood ka xamaasha sanadii ugu dambeeyay ayaa maanta waxaa dhici doona guurkeeda ama waxa weeyaan waxay isguursan doonaan mid kamid ah dadweynaha ciyaaraha cricketka kaas oo Hindiya ugu caansan magaciisana la yiraahdo ama lagu soo koobo LK ama KL Rahul ee saaxiibayaal gabadhan Sunil Shetty dhalay ayaa maanta oo Isniin ah waxa dhici doona guurkeeda gabadhan waxay kamid tahay tirshadaha da'da yar ee Bollywood ka xamaasha labadan shakhsi ayaana hal shaac laga qaaday muddo dheer ay ahaayeen dad yani uu ka dhaxeeyo xiriir jacayl laakiin sanadii ugu dambeeyay ay soo bandhigeen waa hore waa isqarin jireen laakiin sanadii ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyay waxay shaaciyeen xiriirkooda iyagoo baraha social media sawiro labadooda ay soo dhigayeen midba midka kale uu bartiisa social media uu ku leeyahay uu soo dhigay ugu dambeyn waxa caddaatay in labadan qofood uu jacayl weyn uu ka dhaxeeyo laakiin waxa ay go'aansadeen maanta oo Isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 23 January in ay wada aqal galaan sida shaac laga qaaday saaxiibayaal markaan eegno guurku waxa uu ka dhici doonaa magaalo lagu magacaabo Kandala taqaaniin waa heestii caanka ahayd ninkii Amir Khan iyo Rani Mukhraji heesta caankeeda aad ka Kandala waxaan aadaynaa Kandala meeshii ay ku xayisiinayeen magaalada yareed ama waa magaalo yar xeebeed ah oo loo dalxiis tago marka Kandala waxa yani beer weyn ku leh jilaaga caanka ah Sunil Shetty marka meeshaas ayuu ka dhici doonaa gurigiisa uu ku leeyahay beerta xagga magaalada Kandala uu ku leeyahay Sunil Shetty ayuu guurka maanta ama arooska gabadhiisa Atifiya Shetty uu ka dhici doonaa gabadhu ahaan waxa weeyaan 30 jir inkastoo loo maleeyo in gabadhiisa ay yartahay hadana waxa weeyaan waxay dhalatay 29kii eeriyadeeda ay dhalatay yani ahaan waa 30 jir gabadhu marka hadii aan eegnana waxa lagu casuumay dadyoga ugu caansan marka timaado Bollywoodka iyo sidoo kale dhanka ay cricketka ciyaaryahanno waaweyn oo cricketka way ka soo qayb gali doonaan hab ugu weynaado kabtanka dalkaas Hindiya ninka lagu magacaabo Virat Kohli oo ah ninka qaba tishada caanka ah Anushka Sharma sidoo kale jilayaasha ka soo qayb gali doona waxa kamid ah saaxiibada ugu dhow ee Sunil Shetty uu leeyahay sida ninka lagu magacaabo Salman Khan JK Sharif iyo Akshay Kumar oo saaxiibo aad iskugu dhow ay yihiin muddo badan isla soo shaqeeyeen aflaam waaweyn iskala soo muuqdeen sagaashameeyadii marka gabadhu maanta ayuu guurkeeda dhici doonaa saaxiibayaal xogtaas yar ayaan rabay inaan idin la wadaago fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka lagana saar channelka haddii aad ku cusub tahay soo raac oo nagu soo biir si aad u hesho sheekooyinka ugu xiisaha badan ee dhankaasi aflaamta iyo sidoo kale dhacdooyin kale adduunka ka dhaca waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena